cabdicasiis cusmaan maxamed waa ninkan sii cararaya sida kaamira sida uga jeedaan ee qamiiska wata ee baxsanaya waxa muhiim ah marka warbixin sheegtid dhamaadkina la tagtid waxa gacanta lagu dhigay cabdicasiis cusmaan maxamed oo ninka kaamiradu ay qabatay ah oo aad u xeeladeysanaya ninkan waxa la sheegay inuu ahaa haddana uu isagu qiraal sameeyay sida ila ku dhow laamaha amniga gaar ahaan hay'adda dami baaristu ay sheegayaan oo uu hadda ku xiran yahay inuu falka isagu geystay kaamirada waxa markaa ka soo muuqday markaa maadaama aad loo la'aa laakiin uu aad u xeeladeystay markii si fiican loo baaray la arkay ninkan oo albaabka guriga ka soo cararaya dhinacyada fiirinaya aad u fiigsan kadibna si baxsaday ninkan ilaa ay shalay wala la'aa waxa la qabtay aabihiis dabcan gabadha uu dilay oo ah gabadhan dhinacan ka muuqata oo gabar yar ah maa'ida ayaa la dhihi jiray ninka qaatilka ah gabadha waxa uu dhibaato ka gaarsiiyay sida ay ehelkeedu sheegeen wajiga ilaa iyo madaxa meeshaas oo dhibaatada ka soo gaartay gabadha oo runtii aad uga aragtid dhaawacyo waaweyn telegramka ayaan soo gelinay kiiskan wuxuu ahaa mid runtii aad dadka uga nixiyay waliba ha noqdaan dadka meesha falka uu ka dhacay oo warta nabadda ah degan waayo waxaad dareemi kartaa culayska uu leeyahay qofkaagii ahaa oo la dilay iyo kii dilay oo aad markiiba fahmi weysay marka si kasta oo loo baaray ama loo dabagalay markii hore waxaa ka soo wareegtay almost qiyaastii wax ku siman ilaa iyo muxuu 10 saacadood wax ku dhow waa la heli waayay marka ugu dambeyn kaamirooyinkii ayaa markii dambe kuwa dariska ah laga helay ninkan oo soo cararaya aad u ordaya naxsan ama walwalsan sida dabcan u fahmi kartid waxaana la sheegay in ninkan manaxaha ah oo gabadha isaga nafta dhaafiyay dadkii la xiray waxa kamid ahaa gabadha nin adeer u ah iyo dad kale aad u tiro badan hadda waxay xogtu tilmaamaysaa maadaama ninku hadda qiraal sameeyay in la amray in dadkaas xabsiga laga sii daayo isla markaana dambigii iyaga loo haystay ee tuhumka ahaa laga dhamaaday kiiska ninka maxaa laga yeeli doonaa su'aal muhiim waaye waxa hadda laamaha amnigu ay sheegeen ninkan in loo gudbin doono dacwadiisa xeer ilaalinta oo hay'adda CID ay diyaarinayso qodobka ah in ninkan arintiisa la galo marka haddaba sidaan la sameeyo kadib waxa loo gudbinaa xafiiska xeer ilaalinta ayaa hadda xogtu waxay tilmaamaysaa inuu isaga dabcan diyaarin doono sidii kiiskan loogu sii gudbin lahaa maxkamadda marka kadibna ninkan xukunkiisa wuxuu noqonahay laga yeeli doono ninkan muxuu guriga ka qabanayay horaan u sheegnay hadaa laakiin kuugu celino ilowsho yar oo jiri kara bini'aadamka ninkiisa ninkan guriga wuxuu ka mid ahaa dadka imaan jiray uu ka qubaysan jiray uu ka libisan jiray sida xogtu sheegayso nin dadku ay aad u aamineen uu ahaa waliba ehelka nin oo maaragtay ka mid ah nin xer ah uu ahaa sida sheegayaan xogta isla markaasna aan laga filaynin falalka noocaas oo kale ah si kastaba ha noqotay hadda qaatilka waa xiran yahay waxaana gacanta ku haysay hay'adda dami baarista ee CID-da halkaas oo dabcan kiiskiisii lagu guda jiro baaritaanna uu socdo wixii warkan ka soo kordha oo markii horeba aan rabnay inaan meel kusoo gabagabayno intii u dambeysay aan idinla keennay wixii kusoo kordha wuxuu noqon karaa ninka maxkamad taagan ama xukunkii oo wax iska bedelay iyadana waa u joognaa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaad nooga helaysan haddii ilaahay kala noqo